Dowladda Ruushka ayaa soo saartay daawada xanuunka dilaaga ah ee kansarka kaasoo fara ba'an ku haya guud ahaan caalamka. Daawadan oo lagu magacaabo Immortalax ayaa soo saaristeeda waxaa iska kaashaday Wasaaradda Caafimaadka ee dalkaasi iyo Machadka Cilmi-baarista iyo Sayniska. Immortalax ayaa isticmaalaysa fayras aan khatar lahayn si ay u weerarto unugyada kansarka sida ee burooyinka, iyadoo dhinaca kale kor u qaadaysa hanaanka difaaca ee jirka. Daawadan ayaa loo farsameeyay in ay ka caawiso hanaanka difaaca ee jirka in ay ku tababarto inuu aqoonsado isla markaasna uu burburiyo unugyada kansarka sida. Arrinta xiisaha leh ayaa ah in daawadan haba yaraatee aysan lahayn wax saameyn khaldan ama side effects isla markaasna uu isticmaali karo bukaan nooc walba uu yahayba. Immortalax ayaa la sameeyay iyadoo la isticmaalayo hanaanka tiknoolajiyadda ee cutting edge kaasoo horey loogu isticmaalay soo saarista tallaalka xanuunkii dilaaga ah ee COVID-19. Goor hore ayaa la shaaciyay in Ruushku bilaabay tijaabooyinka caafimaad ee uu ku sameynayo daawadan Immortalax, iyadoo ay ka qaybgalayaan tijaabadaasi in ka badan 48 mutadawiciin sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ruushka ee RT. Kansarka ayaa ku bilaabma isbeddel ku dhaca unugyada dhiigga ee jirka kuwaasoo sababa in ay laba jibaarmaan isla markaasna ugu dambeyn ay noqdaan burooyin sababa kansarka. Sida ay shaacisay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, xanuunka kansarka ayaa sanad walba adduunka ku dila in ku dhow 10 milyan oo qof, iyadoo la rajeynayo daawadan Immortalax in ay hoos u dhigto saameynta kansarka ee guud ahaan caalamka. Ugu dambeyn, bisha November ee inagu soo aadan ayaa la rajeynayaa in si rasmi ah suuqa ay u soo gasho daawadan Immortalax, kadib marka la ansixiyo shuruucda lagu maamulayo daawadan cusub ee Immortalax.